qarniga kale kaliya qarnigan aynu joogno oo qura sida taariikhda ku wada haysaan waxa dhacay qarnigii ka horeeyey dunida reer galbeedka oo christianity inay isugu tagtay inay qaybsato caalamka saddexaad waxay maanta u bixiyeen oo muslimiin markaasi ahaa. waxaa bilaabmay cahdigii isticmaarka markaa oo lagu talagalay in la gumaysto dadka muslimiinta ah. cahdiga isticmaarka waxaa la socday in loo tashaday in la burburiyo khilaafadii islaamka ugu dambeysay. dowladii ugu dambeysay ee khilaafo islaamiga kasii taliso waxay ka jiri jirtay wadanka maanta turkiya la yidhaahdo addawla alcuthmaaniya, laakiin waxay ku baahsanayd caalamulislaami intiisa kaloo dhan, masr, sudan, sham, waxaan oo dhan iyadaa ka tirin jirtay. isticmaalkii wuxuu wadaba dowladdaasi waa la tirtiray. waxaan jeclahay markaasi inaan turkiya taariikhdeeda in yar idinka tilmaamo. sababta waxay tahay waa markaskii ugu dambeeyey ee markaasi uu ka taliyo talis islaamiya. waxaad ku qiyaas qaadan kartaa haddii markaskii uu caynkaa u ekaado meelaha kale wixii ka dhacay ama wixii loogu tashaday ayaa tusaale uga qaadan kartaa. reer galbeed mu'aamaraad bay muddo wadeen ah inay inqilaabaan dowladda islaamiga meeshaasi ka jirta. ficlanna inqilaab bay ku dhigeen. inqilaabkaasi uu hogaaminayo nima iyagu soo tababareen oo loo bixiyey magac la ydhaha mustafa kamaal ataturk. inqilaabkani wuxuu dhacay kadib markii uu heshiis la galay reer galbeed isagoo diray ninkii la odhan jiray cismat anunu. heshiiskaasi waa mucaahadaad macruufa, waa heshiiska loo yaqaano mucaahadat lozan. lozan waa losiana baa filaya magaaladani switzerland ka tirsan. mucaahadada waxaa wadagelayay qoladan waxay inqilaabaysa askartee turkida ah iyo wasiiru khaarijiyihii ingiriiska markaasi kazun lo odhan jiray. waxay socotay november 1922 ilaa january 1923. hore ayaa marka horeba loo eriyey khilaafadii islaamiga ahayd oo sultaan cabdilxamiid 1909 abriil ayaa la inqilaabay lagana saaray wadanka. laakiin laguma dhawaaqin in khilaafadii duntay ee nin kalunbay saareen oo magacu yaala. mucaahadadatan waxaa lagula galay 4 ballan. 4taa hadduu fuliyo in inqilaabkiisu uu soconayo, in dowladdaasi markaa waxa dhibaato dhaqaale haysto o dhan reer galbeed ay xalili doonaan. 4 shardi ee laga qaaday ama 4 ballan baa laga qaaday. mucaahadadu 4 rukun ay ka koobnayd waa kuwa kale. waxaa la yidhi 1 inaad khilaafo islaamiya baabi'iso, inaanan dib u maqal kitaab iyo sunna wax lagu xukuma. waxaad doontay kala qaado markaa, laakiin inay baaba'do kitaab iyo sunna inay wax xukumaan. inuu ka hortago ama se uu taxqiiq ku sameeyo, inuu dabargooyo wax allaaliyo wixii muxaawala ama isku day ee lagu sameeyo in lagu soo celiyo khilaafadii islaamiga ahaa. inuu intaa kasii fogaado uu isku dayo shacaa'irta islaamiga, salaada, soonka, xajka, waxaas inuu tirtiro. inuu qaato qaanuunka reer galbeed, hadday tahay nidaam dastuuriya, hadday tahay nidaam qaanuuniyaba, in lagu dhaqmo wadankaasi qaanuunka reer galbeed in la qaato. 4taa shardi markaad qaadato bay yidhaahdeen baanu ogol lahay inaanu taageero dhammaystira ku siino. wuxuu qaatay 4tii shardi. march 3 1924 ayaa markaasi inqilaab lagu sameeyey dowladdii islaamiga ahayd. waxaana la cadeeyey fikradda maanta loo yaqaano jamhuuriyadda turkiya. fikradda jamhuuriga maalintaas baa la bilaabay, waa 70 sano ka hor. muxuu sameeyey markaa? wuxuu isku dayey markii ugu horeysayba maxaakimtii sharciga ahayd iyo awqaaftii islaamiga ahayd buu baabi'iyey. 1925 markay maraysay buu qaanuun soo saaray mamnuucaya zayiga islaamiga ah dhammaantii. gabadhu inay xijaabato, ninku inuu koofiyad iyo cumaamad iyo waxaasi qaato, waxaasi oo dhan mamnuucaya. dadkao dhan waxaa waajib lagaga dhigay inay qaataan zayiga reer galbeedka.
qabcada koofiyada yare cowboyga ama noocaasi in la xidho oo tan yare islaamiga ee la qaadan karaa ay mamnuuctay. wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya markaasi in la joojiyo assalaamu calaykum dadku inay isku salaamaan. alinxinaa baa laisku salaami karaa buu leeyahy, sida reer galbeedka in madaxa laisu yaro fororiyo kaas bay salaatu noqonaysaa buu leeyahy. amase qabcada inaad kor u qaado, koofiyada yare madaxa la saaro, wase iyagu isu salaamaan, inaad ama koofiyada madaxa ka qaado ama aada madaxa hoos u dhigto. 1928 haddana qaanuun kala soo saaray oo sheegaya inay mamnuuc tahay in la dhigo shareecada islaamiga ah. isla markaasi wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya inay mamnuuc tahay qur-aanka in la bartaa. wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay afka carbeed in lagu adiba. wuxuu soo saaray inay rag iyo dumarku dhaxalka ka siman yihin. wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay nidaamka tacadud zawjaat, in ninku dhowr dumara u guursan karo. wuxuu soo saaray markaasi afka turkiga oo u qormi jiray xagga af carabiga, yani alfabetka xurufta u isticmaalaan xagga af carabiga ay ahaan jirtay, wuu mutirtiray oo wuxuu u bedelay xagga afka latiniga inay u socoto. wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya maalinta jimce inay maalin shaqo tahay ee aan maalin jimco fasax aani jirin, ee maalinta axaddo inay noqoto markaasi maalinta dadku ay fasaxayiin. turkiya waxaa ku dhacday markaasi 20 iyo dhowr sanadood buu mamnuuc ahaa qof turkiya in laga maqlo xaj baan tegaya. 20 iyo dhowr sanadood ayaa mamnuuc waxa ahaa qof muslima oo turkiya inay dhacdo inuu yidhaahdo xaj baan tegaya, aan cidina kasoo xaj tegin. wuxuu bilaabay in xataa la yidhaahdo aadaanku allahu akbar in lagu aadimaa ma banaana, taanri ula dur waa in la yidhaha inta meesha la istaago, waa ilaahay baa weyn af turkiya. axad al-aima, imaam kamida aimada turkigan maalin la kulmay, markaasuu iga waramay qisada meesha ka jirtay. sheeku markaa i sheegay aada u ariifa. wuxuu yihi markii uu soo rogay in afka turkiga lagu tukado, salaada la gelaya halkii dadku ay ka akrinayeen alxamdu lilahi rabi alcaalamiin, afsoomaala lagu akrinaya, yani waxaa lagu akrinaya af turki, ilaahay baa weyn waa inuu qof ka bilaabo, yani tarjumadii suuradda waa inuu akriyaa, ee inuu iyada akriyaa waa mamnuuc. wuxuu yihi masaajidkii ugu weynaa magaalada baa lasoo galay, dadkii baa safafkii salaadii isbaxay, dabeetana salaadii baa la xidhay. salaada markii la xidhay ayaa imaamkii de halkii laga sugayay takbiiratulixraamki inuu dadka maqashiyo allahu akbar inuu yidhaahdo, ayuu wuxuu yihi bu yihi taanri ula dur ayuu ku xidhay buu yihi. dadkii markay arkeen meeshan sida loo tukanayo, qofba marubu maradiisa qaato, labadiisa kabood ka qaato, waa iska baxeen. markuu salaamo naqsaday buu yidhi assalaamu calaykum ma jirto, gunaydin malaklarin buu yihi inta xagga eegay, waa af turki, gunaydin malaklarin. weedhaa markuu yidha xagga eegay buu eegay, mise masaajidkaba xagga cidi kuma jirto. gunaydin malaklarin buu yihi xagga kaloo eego, masaajidkaba cidi ma joogto. 20 iyo dhowr sanadood baan markaa turkiya masaajid jamaaca cidi isugu imanin, muddo ku dhadhow, oo marka ay noqotay ninkan raba inuu salaad tukado dee inuu gurigiisa ku tukado. waxaa dhacay masaajidkii ugu weynaa ee wadanka ku yaalay wuxuu u bedelay matxaf museum, akbar masjid wadanka ku yaala ugu quruxda badnaa waxaa loo bedelay matxaf, meel museum oo dadka ay wax ku daawadaan. waxaa laga mamnuucay markaasi in salaada lagu tukado, ilaa maantana waa ka mamnuuc. ilaa maantadan aynu joogno akbar masjid fi turkiya waa ka mamnuuc ilaa hadda in salaad lagu tukada. waa matxaf la dhigo madaxyada dadkii hore iyo turkidii hore iyayda caabudi jirtay iyo wax la nooca, taariikhdoodii la dhigo oo dadku markaasi ay u yimaadaan oo tasawirtaan oo laga baxo. waa meel museum oo tuuristku ay galaan. waxay isku dayay inuu culamada muslimiinta o dhan isugu yeedho ee turkida ahaa, dabeetana inay saxeexaan waxa uu sheegayo, ay dadka yidhaahdaan waa sax. markay diideenna madaxu ka guray, firdhadkoodii yarbaa masar iyo meelaha u kala carabtay, wixii kale markaasi wuu tumay. haddii qalbi alcaalam alislaami meeshii islaamka looga talinayo marka sidaa loo galay, maxaad u malaynaysaa dhulkii kale inay sidee yihiin? waxaa dhacay masalan fi sabciinaat, 70-nadii
sida sheekh cabdalla cazaam uu tilmaamayo. toddobaatanadii baa waxaa dhacday sheekha la yidhahdo amiin siraaj, waa masjidka masjid alfatix, maxamed alfatix ninkii istanbul furtay masjidka loogu magac daray weyn ee ku yaalla magaalada istanbul. sheekha imaamka ka ama se tukiyey